السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabadhan baa social media ordaysa waxay tiri waxaan ahay abtigay baa soo kursaday tiri abtiguna hadii loo sii dhawgalay waa abti labaad iyo meelahaas waaye saddexaad meelahaas waayeen maaha abtigii runta ahaa maaha abti labaad meelahaas waaye baa soo kursaday tiri baa anoo ilaa iyo yarbu i kubsan jiray bal warkeedaan dhageysano horta in isagu markasta ay kubsan jiray uu 8 jirkayga ilaa 10 jiraan ka gaadhayay inuu kubsan jiray 8 jir ilaa 10 jir maxaa dhacay 10 jir markaan gaadhay 10 jir markaan gaadhay waxa dhacday in la yiraahdo caruurta cidna ma xalaaleyn karto hala joojiyo Hargeysa marka waxa dhacday xalaaleyntu waa gudniinka ninkii i kubsan jiray inuu yiraahdo aniga ayaa xalaaleynaya waa ninka la igu abtiga ayaa la igu isaga ku xalaaleynaya anigu amaraan bixin kara maaha qasab familku hadduu yiri way dhacaysaa wixii wax la sameynaya ma fahamtay abtigii kubsan jiray ayaa intuu kacay haddana isku dayay inuu i xalaaleeyo waa la ii qabtay isagaa la hordhigay waa la ciijiyey gabadhan live-kan u fulnay iyadoo live ka jiro arrinkan ka hadlayna baanu u fuulnay live-ka waa u tacsiyeynay waa ka xunahaanay annagoo saa ku jirno iyadoo le wejigiisaan soo dhigay aanan leenahay waxa wejigiisa soo dhigayna dhib hadduu kuu geystay waqti horena ay tahay waxa weye ilaahay xaggiis u samir ninkiina uusan meelahan wadamadan dibadda uusan joogin muxuu ahay jadiito ilaahay isaga samir waxna wejigiisa usoo dhigin caruur iyo hadduu dhalay iyo waxaa u tur baa waxaa soo gadhay soo fuushay gabar reer waqooyi ah soo fuushay ay tiri naagtan waa naag oromaah anaa fiidiyoyadeeda daawan jiray hadda ka hor oromay sheegan jirtay soomaali maba ahanba gabarka ayadna soo fuushay tiri anigaaba aqaanaha isku xaafad baanu deganayn oromay weeyaan meel bay horteeda waxay ku gadi jireen iyaga reereedu kafee ku gadi jireen waxaa kaloo jireen ognahay inay oromo badan ay degan tahay somaliland ay degan tahay iyo puntlandba af soomaaligan waxay ugu hadlaan sida taktiga ah bay ugu hadlaan sida soomaalida kale ugu hadlaan marka gabadhan horta midda aan ku haysto waxa weeye gabadhan horta dhibaatada ku dhacday Allah uu sahlo haday run tahay tan ka ku haysta waxa weeyaan oo qaladku meesha uu ka dhacayo oo marka baaraysid waxa weeyaan nin Soomaali ah oo gabar guda ma jiro siiba hadaysan meesha isbitaal ba ahaynba nin Soomaalihi ma gudo gabar ma fahantay gabadha ma dhibaan baa guda islaan ma dhibaanaa guda waa pen iyaduna waxay noo sheegtay inay gabooyo tahay hooyadna isaaq tahay bay sheegatay arrinkan waxba u dhiman ma saxna